الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسلامتين صاحبيال. وحرجينا إن هذا عافية قبطان دمانتين بقى. ما أنت واحد وجود بيننا قيبتين لبعض أما intermediate كا برشة سوق فوركس واللي بس يسيا وأدو فل. ما أنت هالكم واحد نويا له ريا بدن وكل دوان ومدول بقى نوع لو استعماله مدول بقى يمجي يسيد الله استعماله بين وضبرنا يعرفها لو سوق جابي كله. horta marka koowaad waxa ogaataan in waxa dhan kulligood aydan wada isticmaali doonin laakiin marka hore barta ogaada sida loo isticmaalo iyo maaragtay iyo meelaha ay galaan laakiin waxa maaragtay si daily ah maalin kasta xilli kasta oo baanta maaha laakiin in aqoontooda haysa midba maalin baad arkaysaa midba maalin buu ku imaanaya hadda meelaha isku aragtina hala yaabin haddii maaragtay koorsooyin kale qaadatina macallimiintu ayuu ka sheekeen waxaan u dul maray hadda aragtina sidoo kale dee aqoon waa inaad kasii haysataa waa cashirkeeni koowaad qaybta intermediate-ka soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan baran doonaa qayb ka mid ah ICT Foundation oo ICT loo isticmaalo deesaa hore idinku soo sheegay waxaynu maaragtay u isticmaali doonaa istiraatiijiyadeenan ilaa iyo 4 system oo kala duwan oo mid walba inta aan uga baahanahay kaliya aynu ka isticmaali doono midka inoogu horeeya waa Fire Value Gap oo loo soo gaabiyo FVG Fire Value Gap muxuu yahay xagee ka dhaca waynu baranaynaa midka labaad waa Fire Value Gap oo FVG loo soo raaciyay kan ayuu u dhow yahay isagana gadaal ayaynu ku baran doonaa order block oo OP loo soo gaabiyo isagana iyo waxa uu yahay breaker block oo BP loo soo gaabiyo isagana iyo waxa uu yahay mitigation block iyo waxa uu yahay meesha laga helo BOS oo loo soo gaabiyo break of structure isagana sida uu yahay iyo meelaha loo isticmaalo ayaynu baran doonaa George oo maartay loo soo gaabiyo change of character isagana waynu baran doonaa iyo sida meelaha loo isticmaalo MSS oo loo soo gaabiyo market structure shift isagana waynu baran doonaa marka la socda casharka insha Allah wax laga yaabo waxyaalo badan oo shashada aanan ku qorin in afka ka sheego marka hadii maartay aad meel ku qoraysa buuga qalin soo qaadatid wax noo garaysatidna aday ku intifaaci lahayd oo ku fiican tahay insha Allah man ilaawi doontid waxa aad meel ku qoratid waxaynu ku bilaabaynaa marka ugu horeysa order block waa maxay order block xagee laga helaa order block waxa weeye suuqa kor marka uu socdo oo uu sell soo noqdo last candle ee up ahaa ayaa waxa la dhahaa order block waa last candle ee up ahaa inta uu suuqa uusan down imaan ama suuqu uusan hoos u soo daadan inta suuqu hoos u soo daadan last candle ee up ahaa tusaale ahaan hadda suuqa kani waxa uu ahaa suuq buy ah ama kor saasoo kale ugu socday and then hal mar buu sell soo aaday last candle ee suuqa markuu kor u socday up ka ahaa ama buy ka ahaana candle kaas buu ahaa badanka candle kaas waa lagu soo noqdaa suuqu mar kale ayuu hadana maaragtay retest ka soo sameeyaa oo hoos u soo noqdaa marka kan waa tusaale uu baayahay tusaalaha kanna inay tusaale u saliyahay aan dhahe tusaalaha kanna waa tusaale uu baayahay suuqa kan suuq sell buu ahaa last candle oo sell ahaana waa kaas oo hoos u xirmay wuxuu noqonayaa order block oo suuqu mar kale intuu qaraar ka qaato oo soo taabto ayuu hadana baayidi ka sii baxaya marka kanna intuu qaraar ka qaato oo soo taabto ayuu maaragtay sell ka sii baxaya marka kanna baayibu ka sii baxaya barba mid buu maaragtay aadaya marka order block maxaa la dhahaa order block waa last candle ee up ahaa inta suuqu soo down aadin ama last candle ee down ahaa inta suuqu uusan up aadin intaas ku kala duwan yihiin order block seller iyo order block buy ah marka isagana chartska inuu isla tigi doono insha Allah soo maaragtay si wadaxsan baynu maaragtay u falanqeyn doonaa laakiin fikrad ka sii hayso order block maxaa la dhahaa hadii maanta oo kale mar kale lagu dhaho ha ilaawin insha Allah oo order block waa last suuqi kor u socday candle-kiisa ugu dambeeyay ee buy-ga ah baa waxa la dhahaa order block buu noqonayaa candle-kaas uu ku soo noqdaa suuqu uu soo taabtaa and then uu ka soo laabtaa oo sell-kiisu sii wadanaya markuu sell ahaana last candle-kaana maaragtay order block ah oo suuqi downka ahaa last candle ee down ah buu ahaa waa lagu soo noqdaa waa la taabtaa and then buy ayaa laga sii aadaa marka saas ula socdo insha Allah order block iyo waxa la dhaho waa intaas waxaan u gudbaynaa Fire Value Gap iyo Inversion Fire Value Gap
very valid gap maxaa la dhahaa very valid gap waxa weeye kanalka koowaad iyo kan saddexaad hadda saddex ka dhan maaha 1 2 3 kanalka koowaad iyo kanalka saddexaad markaysan fiiqoodu istaaban kanalka koowaad markuu fiiqiisa uu soo taaban waayo kanalka saddexaad waa gaab meeshaas gaab baa ku jiro lacag badan baa looga tagay kanalkana volume ku baxay suuqa dumar si volume ku soo baxo oo soo laabtana siin soo qaadanaya andin markaa soo baxa marka kanalka markay istaaban waayaan kanalka koowaad iyo kanalka saddexaad labadooda fiiq markay istaaban waayaan waxa la dhahaa very valid gap kanalka koowaad waa kan waa kii labaad kan waa kii saddexaad soo maaha 1 iyo 3 isma aysan taaban 1 iyo 3 hadii ay istaaban waayaan waxa inta u dhaxaysa waxa la dhahaa very valid gap oo waa kan gaabku meesha dhexe ku jira fiiqi kan waa kan fiiqiis waa ka inta u dhaxaysa gaab baa la dhahaa gaabka suuqu uu ku soo noqdaa uu soo buuxiyaa andana jihadii uu rabay ayuu ka aadaa kan waa very valid gap maxaa la dhahaa buy ah kan waa very valid gap sell ah oo kanalka koowaad waa kan waa kii labaad kii saddexaadna waa kanalka saddexaad iyo kanalka maarayta koowaad isma aysan taaban inta u dhaxaysa waa gap waxa la dhahaa very valid gap waa bearish very valid gap kan waa bullish marka suuqu uu ku soo laabtaa gaabka uu soo buuxiyaa andina wuu ka soo laabtaa oo uu ka sii baxayo jihadii markaas uu u socday ayuu aadaa marka intaas kan waa very valid gap buy ah kan waa very valid gap bearish ah bullish iyo bearish bay kala yihiin marka lacagtu way meeshan volume baa kanalkan kaxeeyay kanalkan xoog buu u booday markaan oo kale waa kanal volume leh marka kanalku hadduu xoog u boodo waa la soo nasiyaa xoogaa lacagtu waa la soo celiyaa maadaama meeshan lacag badan maartay la geliyay andin markaas hadana karaar baa laga sii qaataa din volume kale ayaa ka sii baxa kana waa sidaas la mid ah oo kanalka koowaad iyo kanalka saddexaad isma taaban 1 2 3 ka saddexaad koowaad isma taaban inta u dhaxaysa waa very very gap waxaan xoogaa ugu celinayaa maadaama qof laga yaabo basic hadda to forex u waraysan inuu muuqaalkan daawado waa inuu fahmaa oo samaarta ku wareerin mardamba maartay very very gap iyo waxa uu yahay oo aan looga sheekin very valid gap saas ugu gudbinaa waxaan ugu gudbinaa inversion very valid gap inversion very valid gap maxaa la dhahaa inversion waxa la dhahaa gaabkii hore jiray hadda kan very valid gap hore waa 1 iyo 2 iyo 3 soo kan maaha waxa la rabay in lacagtu halka keentay taabato andin sa u baxdo soo ma aha marka kan volume kala hadana geeska kale ka soo geliya oo gaabkii baa la jabinaya gaabkii laftirkiisi baa la jabinayo gaab kale baa jabinaya marka laba gaab is dhaafaan waxa la dhahaa inversion very valid gap baa la dhahaa oo gaabkii hore la rabay in suuq maartay intii hal mar la taabto saan looga soo laabto la taaban maye waa looga sii soconaya isagii baa la jibinaya inversion buu noqonaya marka inversion gap buu noqonaya inversion gap markuu noqdo maxaa dhaca inversion gap markuu noqdo waxa dhacaysa inuu suuqu isaguna sidii si la mid ah u jihada kale intuu kaga soo jeesto oo gap kale markan loo xisaabinayo kanalka labaad kanalka saddexaadna kaas uu noqonaya haddana halkan intuu ku soo laabto gaabka wadan saas u baxaya jihadaas buu aadaya waa bullish oo inversion very valid gap weeye marka meeshii la rabay marka hore maadaama kan gaab ahaa halka ku soo baranay 1 2 3 oo saddexdii kanal asaas yihiin kanal koowaad kan saddexaad inta u dhaxaysa gaab tahay insan intii loo taabto la sii dhaafiso lama rabin kan lama maartay intii la taabtin laga soo noqday la rabay kan intii la taabto ayaa waliba laga sii dhaxbaxaya oo jihada dhan la bedelinayaa kadib maxaa dhacaysa kana la xisaabsanaya hadana gaabkan hadii loo xisaabinaya kan wuxuu noqonayaa inversion buu noqonayaa waa gaab la jabiyay very very gaab shaqeyn waayay waa la jabiyay kana dib u soo noqonaya oo gaabka soo taabanaya andana jihadii saxda ahayd ayuu markaas aadaya suuqu oo jihadii saxda ahayd buu markaas u jihaysanaya kan waa bullish kana waa bearish very very gap marka kan oo kale kanalka koowaad waa kan waa kii labaad kana waa kii saddexaad waxa la rabay inuu lacagta intay saan u taabato inay halka aado oo ay buy noqoto laakiin lacagti buy ma aysan noqone ayadii baa maaragtay laga sii dhaxbaxay oo hadeer hoostana wax noqonaysa gaab kale 1 iyo 2 oo kaas ah iyo 3 oo kan ah gaab kale hadana meesha imaanaya kan intii marka la soo taabto ayaa hadana sel ka soo dhacaya iyo sel kale baa halkaas ka imaanaya oo gaabkii baa la jabinaya I think in intaas sharaxaad ay ku filan tahay maadaama xogaa sharaxaad yar dheereeyay suuqana waynu isla tagi doonaa insha Allah chartigana waynu iskala fiirin doonaa casharka ku xiga aynu u gudubno oo ahaa afwan
breaker block iyo mitigation block bayna aynu baranayna. Breaker block waa maxay? waa suuqu markuu saan oo kale sel u socday lower high samaysto lower low samaysto and then wuxuu sameynayaa candle kan ugu dambeeyay structure-ka lower low la sameyn candle-ka la jabiyay baa waxa la dhahaa breaker block. waa order block-i aan soo baranay kan soo ma ahayn last candle suuqu markuu aaday last candle oo down ahaa soo kan ma ahayn waxa la rabay inuu suuqu taabto hal mar aan qalinka bedesho. waxa la rabay hadda candle kan waa last candle oo maartay down ahaa inta suuqu uusan aadin soo maaha. waa order block buu ahaan lahaa. order block baa la jabinaya. order block hadii la jabiyo maxaa la dhahaa? breaker block baa la dhahaa. waa block jabay marka hore muxuu ahaa? order block buu ahaa and then muxuu noqonayaa breaker block. kadib maxaa dhaca? lacagtu markay saan oo kale breaker-ka u jabiso breaker block samayso way taabataa and then sell bay markaas ka sii aadaysaa oo jihadii ay u socotay bay markaas aadaysaa. jihadii ay u socotay markaas ay lacagtu rabtay inay tagto bay tagaysaa. waxa weeye kan waa last candle oo order block ahaa. order block la rabay inuu suuqu intuu saan u soo taabto uu kor uga baxay la rabay isagii baa la jabinayaa waa laga dhex baxaya. isagii markii la jabiyo kadib muxuu noqonayaa breaker block buu noqonayaa. block jabay kana waa isagoo bullish oo maaragtay last candle in suuqu maaragtay higher high uu keenay and then higher low and then higher high. marka last candle suuqu maaragtay up ahaa inta soo down aadin waa kan oo block-i order block buu hadda noqon lahaa lacag hadii suuqu hoos u sii socdo intii isaga la taabsado oo laga karaar qaato buu suuqu hoos u sii dhaqaaqi lahaa. laakiin isagii baa jabay. hadda maxaa la sameynayaa kan jabay laftirkiisa baa hadhow laga karaar qaadanaysa sana loogu soo noqon and then uptrend baa markaas kadibna ka baxaysa oo waa bullish kan waa bearish order block. mitigation block baynu gudbaynaa. mitigation block muxuu uga duwan yahay order block? mitigation block wax badan oo saas horta order block uma duwana oo laftirkiisa waa order block jabay laakiin candlada markay si volume u jabiyaan ayuu gaab ahaan buu halkan ku soo beegmaya. very very gaabkii ba order block ku beegmaya. markaas asaga intii la soo taabto mitigation block-ga waa laga sii baxayaa dhowsana waa laga sii bixi karaa haddaan de order block-kan ka hooseeya la soo gaarin oo markaa kadib halkaas lacagtu aysan abtirin aysan ka noqon. wax badan ku daahimayno mitigation block waa intaas. order block wuxuu uga duwan yahay kaliya very very gaabka isku beegmaan and then waa la taabtaa hadhowna abtirin buu ka aadaya marka kana waa isagoo down train ka aadaya. yani waxba maartay sharaxaada aad iskugu sii dheereen inuu u gudubno qaybta ku xigta oo ahaa midkan ugu dambeeya proof of structure, market structure iyo change of character. saddexdaas oo maartay kala baranayni oo mid walba wixii loo soo gaabiyay waynu maartay sheegnay. aan qaniga soo qaato break of structure. maxaa la dhahaa break of structure? waxa la dhahaa suuqu markuu structure-kii hore uu sii jabiyo. suuqa lacag hadda suuqa kan oo kale waa suuq higher low last higher high markii la jabiyo oo break of structure oo structure-kii baa markii la isbedelay kanaad xisaabsan doontaa hadhow high-gaas iyo low-gaas xisaabsan doontaa and then maxaa la dhahaa in maartay discount lagu keeno isagana 10 dib baynu ka baran doonaa discount premium in dhaqaaqa maartay pullback ku keeno and then high cusub keeno. markuu high cusub keeno high-gii hore waa la jabiyay oo maxay noqonaysaa structure-ka hore wuu jabay. intaas loo soo gaabiyay structure-kii hore wuu jabay and then maaragtay saas u soconaya mar walba maartay last dhaqaaqaaga baad xisaabsanaysaa. dhaqaaqaas haduu jabo waa structure-kaas waa jabiyay waa la midka dambe baad sii xisaabsan doontaa. hadda suuqu markuu maaragtay saan ahaa dhaqaaqaana haysatay and then pullback baa heshay inta aad ku xisaabtamaysa waa intaan dhexe and then intii markii maartay pullback ta heshay hadhowna fursadda soo fulisid kor markuu halkan jabiyo oo kale break of structure buu dhahaya oo yani structure-kii hore waa isbedelay. markuu structure-kaasi isbedelo haddana waxaad xisaabsan doontaa next structure oo structure-ka ku xiga ah baadana sii xisaabsanaysaa. mar walba aad structure-ka nool baad la jiraysaa. hadda kana yar nool kana la jiraysaa. kan markuu jabo oo break of structure sana lagu sameeyo kan ka horeeya la jiraysaa. kan ka sii horeeya ayaa haddana la maaragtay oo hadda suuqa markaas oo kala haya ayaa la sii jiraysaa kan oo kale baa la jiraysaa. maxaa u baahanaysaa hadhow in isaga saas oo kale intuu soo pullback u soo qaato haddana structure-kii uu dib u jabiyo
marka change of characterna maaragtay isagana waxaa inkastoo ereyadu isku dhow yihiin oo dad maaragtay magacyada ka bedbedeshay wax weyn ma aha laakiin aad waxa loo baahan yahay xoogaa xitaa iyagoo magacyada laga bedelay inaad fahansan tahay change of character maxay badanka u isticmaalaan waa break of structure iyo maaragtay aan wax badan laga bedelo la yara naashnaashay weeye marka change of character waxay ku leeyihiin waa suuqu characterkii uu ku socday dhan buu bedeshay hadduu suuqu up trend ahaa higher low uu ku socday hal mar buu isu soo bedelay wuxuu noqday low oo higher low ugu dambeeyay baa la soo dhaafay low buu noqonaya marka aad hadda meesha suuqa ka rabtay inuu saan suuqu kugu soo laabto oo bullback ku yimaado oo ku keeno Soomaaliya high cusub oo halkaas oo kale aad target galaysid lama keenayo waxa la sameeyaa lowgaagi oo maaragtay suuqa awoodiisa ku hayay baa laga jabinaya higher lowgaagi baa la jabinaya suuqa meesha up trend u waday inta wixii ka dambaysa down trend baad u soo wadaysaa oo suuqa hadii markii hore aad maaragtay bay ka raadinaysid halkaagi hadii la soo jabiyo maadaama aad last range-gan haysatay hadii last range-gaaga la soo jabiyo inta wixii ka dambaysa sell bay raadinaysaa oo waxa u baahanaysaa sidiisi la mid ah inaad bullback heshid andana soo sell gareysid inaadana bullback heshid anda soo sell gareysid bullback heshid soo sell gareysid intaas maaragtay sugaysa ilaa iyo inta isagana dib looga soo bedelayo oo bullback taadaas maaragtay buy loo soo bedelay range-ga haysatay markaan range-gan aad haysatay range-gaagi baa isu soo bedelay change of character buu noqonaya bullback baa sidiisa kul u raadinaysa saana u soo wadaysa maadaama bullshan xogaa aan ku yira dahnay bearish waxba ku daahimino waa sidiisi la mid ah waa sidiisi la mid ah hadaa rabnana waan yara taataamanayna suuq markaan oo kale wuxuu u socday sell saas oo ahaa lower low lower high and then last lower lowgi last lower high baa la jabinaya marka last lower high la jabiyo character-ka uu isbedelay ama change of character baa dhacay uu isbedelay suuqii oo suuqii selka ahaa buy buu noqday inta waxa ka dambaysa buy bay ka raadinaysaa hadana saas aad ula soconaysaa ilaa iyo meesha ay buydaasi ku dhamaato ayadana lagu soo istaajiyo sida tan oo kale buy kastana iskama socoto waa la soo istaajiyaa sell kastana iskama socoto waa la soo istaajinayaa market structure shiftna waa maxay market structure shiftna waa isla intii oo kale waa maaragtay magaca laga bedel hadda meeshan oo kale maxaa la break of structure soo noogu qornay BOS soo noogu qornay intii waxay ku qorayaan MSS oo market structure shiftiya waa inaad maaragtay xogaa micnaha guud ka haysan kartaa muhiim ah inaad maaragtay ereyada isticmaashid muhiim ah inaad mar walba waxaan ku dhawaaqday mar walba inaad wax qeexdid waa macquul inta hore maaragtay xogaa yar basic ah tahay inaad shaashadaada iyo waxaas ku qorqoratid waxaas waa wax jirta waa caadi laakiin hadhow markaad xogaa professional noqotid qof gacanta u fadhida noqotid oo maaragtay xogaa isku filnaansho gaaraysid uma baahanaysid in ereyadaas qorqortid xitaa xariiqa iska saaran kartaa waxa doontaa ku qorqoran kartaa magacaaga ku qori kartaa hadaa u fahmaysid xitaa magarat kana waa isagoo down trend-kii iyo up trend-kii way suuqa maxaa la break of structure muslim hadana again break of structure kale marka la soo jiimniya saas oo kale way marka wax badan maaragtay kuma daahin doona insha Allah charts-kan oo bal isla tagaynaa inta wixii ka dambeeya oo charts-kan waxaan ka tusi doonaa dhammaan casharadatan intaan aan meesha ku soo qaadanay fair value gap-ka inversion fair value gap-ka order block breaker block and mitigation block break of structure change of character iyo market structure shift inta ugu badan mitigation block horta lama arko aad looma isticmaalo marka maaragtay suuqa la joogo dadka inta ugu badan kuma arki doonto iyagu maaragtay aad u isticmaalaya laakiin intan kale waa macquul sidoo kale change of character kana badanka xogaa dadka maaragtay ACT-ga aad u isticmaalo laftirkooda xitaa qaar baan ku badan dadka SMC-ga waxaas aad u isticmaala laakiin wayna micno guud aad ka haysan kartaa iyo faham guud aad ka haysataa oo yara fahansan tahay qaybta charts-kan isla tagaynaa waxaynu ka eegi doonaa dhammaan intii meesha aynu ku soo aragnay oo dhan baynu maaragtay mid u wada fiirin doonaa waxaan joogaa 1 hour time frame 1 hour kaas baan joogi doonaa insha Allah oo maaragtay ma ka gudbi doono laakiin time frame kasta waa ka heli kartaa oo waa ka macquul waba qasab waa geeri kartaa waxa ugu horeeyay hadaan qaldaneen order block waxa aynu qaadanay order block maxaa la dhahaa order block waa last candle up aha inta suuqa uu si dhow soo aadin suuqa kan hadda maaragtay kan oo kale up buu ahaa upkaas uu socday and then down buu soo aaday up and then down buu soo aaday halka kan and then up kale and then down buu saas u sii aaday suuqan markaas xogaa u fiirsid waa suuq sell ah marka maxaa u baahan tahay last candle up aha inta suuqa down aadin waa order block waa kaas ka koraa la dhahaa suuq ugu taabta and then jihadii uu socday ayuu maaragtay ka soo aadaa suuq soo taaban and then wuu soo aaday
hadduu maaragtay down tiran yahayna saas oo kale lasting candle oo down ahaa ayaa maaragtay intuu suuqa soo taabto haddana up aadaya. hadda kan oo kale upkaas aan u deyno order block oo kale oo up ana waa kan maaragtay haddaan doono wada calaamadeyno oo si aad u yara fahantid. kanalkaas oo kale waa buy maxaa lahaa waa bullish ba order block oo soo bedelay sell buu suuqa aaday. mar kale waa kan kor xitaa wax sabsan karta maadaama suuqa halkan uu markii iska soo bedelay laakiin suuqii hore oo buyda u socday kanalkiisii hore oo order block ah isagana maaragtay kan ayuu noqon doonaa order blockaas weeye. order blockaas marmar waxa macquul ah in last order blockaas oo kale aan la soo taaban laakiin labo kanal ilaa 3 kanal hadii ay isku xiriirsan yihiin kanalada maaragtay buyda ah oo wada xisaabsan kartaa. hadda sida halkan maaragtay ka muuqato oo kale 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waliba weeye intaas oo dhan waa isku qabsan kartaa waa isku xisaabsan kartaa. maaragtay intaas oo dhan order block waa ka dhigan kartaa ilaa 3 baa ka dhigan kartaa ilaa 2 baa ka dhigan kartaa ilaa 1 baa ka dhigan kartaa. waa adiga iyo jacaylkaaga iyo meesha ay isleedahay suuqu ku tagi karaayo xisaabtaada maaragtay ay kugu fadhido baad ka dhiganaysaa. hadda kan oo kale order blockyada seriiska oo dhexda ku jira buu maaragtay muddo ka soo noqday uu ka kora uusan tagin meeshaas dhexe ka soo noqday kanalka abka meesha ku jira ayuu suuqu ka soo laabtay. chartska ma soo kala saaro sadan hadda xogaa muddo inuu waadax ku yahay. marka order block waa kaas last kanal oo abaha inta suuqu uusan doonkan soo aadin kanalkaas waa kanal up ah waa kanal buy ah oo meesha ku jira anda suuqu doon buu ka soo aaday up buu aaday kadib doon markuu soo aaday upkiisa waa kan last kanal order block waa la soo taabtay and then waa laga soo taabtay sidaas la mid ah mar walba wuu sameeyaa. order block maaragtay doonka ahna waa kan hadda suuqa kan oo kale selkan uu soo socday last kanal up ahaa waa kaas doon ahaa waa kaas order block suuqu wuu soo taabtay wuu ka kacay markaan xitaa wuu soo taabtay inkastoo kanalkaas uu ku dul xumay isla markii hal mar baa la soo taabtay waa laga sii tagay laakiin hadhow waxa moodaa in dib loogu soo laabtay oo haddana laga sii tagay order blockaas kala haddana suuqa soo xukumay haddana suuqa soo celiyay markale karakterkadan hoos isku sii bedelay. marka order block sell buu kaasna mid kale oo sell ah isagana sidoo kale waa kan suuqa kan haddana kanalkan waa order block sell ah suuqa uu taabtay kor buu u celiyay hadduu haygaas jebin lahaa dee suuqaan oo kale buydaas ku sii socon lahaa laakiin isagii baa laga adkaaday oo waxa moodaa structure-ka suuqa halkan geeskan inuu xukumayo and then selkiisi oo saas ugu soo daatay. kan oo kale waa news haddii aan qaldaneen waa newska maaragtay NFB oo economiga oo soo baxa maaragtay maalin jimco kasta oo ugu horeysa bisha asbuuc kasta oo bisha ugu horeeyay maalinta jimcaha buu ka soo baxay newskaas. insha Allah newsdana 10 inuu ka qaadan doonaa. kanalkan order block suuqan selka u socday last candle oo down ahaa inta suuqu up soo aadin waa kan waa order block sell ah last candle ee up ahaa inta suuqu maaragtay down soo aadin waa order block waa kaas order block kale saas u xisaabsan kartaa order blockyada oo dhan iyagana waa la taabtaa oo suuqu ka soo falceliyayo jiha kale ayuu si aadaa din order blockan oo kale kan koraa la yara taabtaa muddo wax yar oo beena marka adigana waxba ku daahin maadaama sharaxaadii hore aan kusoo dahnay order block waa kaas iyo wixii la dhaho waxaan u gudbaynaa fair value gap iyo inversion fair value gap. fair value gapna waaba kan bayaan meel dheer ka raadin fair value gap halkan ku jira saddex kanal koowaad kanalka waa ka saddex samaysan taaban kadib kana la soo taabtay and then lacag to buy bay ka sii aaday gap halka ku jira kanalka koowaad kii labaad kii saddexaad waa kaas ka koowaad iyo ka saddexaad afkooda ismu taaban gap baa ku jira gap waa la soo buuxiyay and then buy baa laga sii aaday oo buy baa maaragtay halkaas ka baxday halkaas oo kale trade ay noqonaysaa. mar kale gapka haddana dib baa maaragtay moodeen haddana mar kale loogu soo laabtay oo maaragtay dhexdiisa la soo galay gapka la soo dhex galay hadhowna maaragtay ay buyda ka sii markii saan gapka loo soo dhex galo maaragtay halfkiisa limaada bond 5 ka gapka la yimaadana waxaa loo aqoon jiray min fresh baa loo aqoon main fresh kiisa la yaqaana oo gapka min fresh kiisa la yimaado hadii lagu dhaho waa yani gapkaas waa buuxa meeshan oo kale gap baa ku jira waa kan kanalka koowaad kii labaad kii saddexaad afkooda isma taabanka koowaad iyo saddexaad waa la soo buuxiyay yar baa laga baxay haddana si fiican baa loo soo laabtay main freshkiisa baa si fiican loo soo dhex galay and then trade-kaas buyga ah
ayaa haddana ka baxay. sidoo kale meesha tan hadda waxa iga muuqato oo kale waxa iga muuqda inversion fair value gap baa iga muuqdo. waa kan hadda suuqan hadda silka marka uu ahaa silkan marka waa kanalka koowaad kanalka labaad kan saddexaad waa kan kii koowaad iyo labaad iyo ka saddexaad yani gap u dhaxay waxa la rabay in gapka inta loo taabto aan sal la aado laakiin gapkii lama taaban waa la dhex raacay gapkii waa la jebiyay oo toos baa maaragtay loogu sii socday gapkii toos baa loogu sii socday kadib maxaa dhacaya waa aniga inay gap markii toos loogu sii socdo isaga laftirkiisa hadhow la soo cuskan doonaa hadhowna maaragtay bayba hadhowna saas uga baxaysa waa inversion fair value gap. inversion fair value gap waa maxay gapka marka uu shaqeyn waayo oo uu jabo inversion buu noqdaa. inversionka waa lagu soo laabtaa andana waa laga sii baxaa suuqa. laba gap haduu isku beegmay kana hore markii rocno fiirinaynay laakiin waxa moodaa inversion laftirkiisa meesha in uu ku sii jiro oo kan ahaa waa la jabiyay andana kor buu sii baxay. sidoo kale xitaa kanalkan ka horeeya mar order block baa u xisaabsan kartaa inta inversionka waxa dhanka deysid order block baa u xisaabsan kartaa last candle down aha inta suuqu aadin oo waa ka suuqu ka tagay mar kale halka kanadana uu ka sii tagay inta suuqu yimi cuskaday ayuu bay ka aaday markana bay kale ayuu ka aadayo laba fursadood baa halkaas maaragtaa ka baxday. mar kale waxa loo isticmaalaa intaan ka gudbin hal mar aan ku daro order block waxa uu la mid yahay sidoo kale maaragtay zone oo demand zone baa mar loo yaqaanaa mar waxa loo yaqaanaa support intaas oo nooc loo isticmaalaa kan markuu saas yahay halka zone tahay mar waxa dhahaysa waa zone aan ku qoro si maaragtay di aad qoranaysid oo kale mar waxa la dhahaa waa zone mar waa demand mar waa order block oo AB loo qoro marna waa support iyo resistance-ga intaas ba maaragtay waa la isticmaalaa iyagana. marka intaan hooseba waa u xisaabsan kartaa oo mid walba maaragtay system walbaba nooca uu isticmaalay zone bay ku noqonaysaa demand bay ku noqonaysaa OB bay ku noqonaysaa support bay ku noqonaysaa intaas oo dhan waa u xisaabsan kartaa hadba midka adigu aan niyada ku haysatid. hadda magac kale u la baxaysidna waa meesheeda magacyadan badad baa bixiyay. marka maxaa inoo dhiman change of character iyo waxa inoo dhiman hadii aanan qaldaneyn breaker block isagana aan si fiican halkaan uga dhex raadino. breaker block waa kan oo kale hadda saan oo kale loo isticmaalaa breakerka ada structure-ka kan oo kale inkastoo aad adana iskugu jiro saan markuu ahaa kanalka kana ka qurux badan baa marinay kanaan xisaabsanayna hada kan oo kale waa breaker kanalka markii la jabiyay isaga waa lagu soo laabtay isaga moodaa in yar laga baxay laakiin hadana waa lagu soo noqday liquidity baalka lagu sameeyay liquidity-da ay sheegay laftirkooda 10 baan ka soo wadaa oo inuu ka qaadan doona suuqa kan oo kale markuu kan jabiyay isagana breakerkii uu taabtay wax yar oo been uu taabtay hadana uu soo laabtay. marka adi breakerna waa kanalka kan oo kale markuu suuqa saan loo jabiyo saan oo kale markuu suuqa structure-kiisu isku bedelo kanalkii order block ahaa ee la jabiyay maadaama suuqaani markii hore sell u socday last kanal order block kan ahaa oo markaas intii la cuskaday marba halka intii la cuskaday order block la taabtay ee dambaydaas ka baxday waa lagu soo noqday order block-gii halkaan oo kale xoogaa uu lacagta celceliyay soonka lagu celceliyay demand-ka supportiga waxba waa dhigi kartaa kan order block-gaas lagu celceliyay lacagta andan waa la soo jabiyay. markii la soo jabiyo already wuxuu noqonayaa breaker block buu noqonayaa isaga lagu soo laamanayaa andana sell baa maaragtay isagana ka sii bixi karta. hadda markaan oo kale axmedana sell yiriisa ka soo baxay laakiin waa laga soo awood batay oo halka kan maadaama maaragtay buyers badan ay ku jireen suuqa maaragtay move-kii weynaa uu sax ku sii socday. marka breaker-kuna isaguna waa kaas order block marka uu jabo maxaa inoo dhinaa de hal mar ku noqdo mahasheni breaker block change of character iyo market structure shift eegan waa maxaa lahaa proof structure ko maaragtay magacyada laga bedelay weeye. suuqa kan oo kale hadda buy buu ahaa kan waa isagu waa la dilay andin dhaqaaqan kiilowga keenay kaas korob uu ahaa kan uu ahaa isagina halkaas lagu kala bedelay proof structure iyo change of character isla socda waaba kuwanba
proof of stake suuqa markuu sii socdo maaragtay loo sidiisa u sii socdo loogiisa ayaa maaragtay loo yaqaanaa change of currency. wax badan kuma kala duwanaaday dad oo maaragtay raba inay systemyada dadka iibiyaan oo maaragtay lacagta ku badsadaan ba magacyadana ku badsanaya. hadda aanu bariga bilowga ahaa intaanu magacaada meesha ay ku jirtay waxaan hadda magacaado oo aanan badankood aan isticmaalin oo maaragtay hadda kan oo kale weekly sell high iyo miya wax saas ah waxaan dhan waa isticmaali jiray bariga maaragtay basic ah waa wada bartay yani iska baro fahan way ku anfacayaan. hadda proof of structure iyo change of character hadda animation maxaa iigu jira proof of structure oo kale hadda meesha waa iigu jira ko waxa kale oo maaragtay iigu jira market structure shift laftirkiisa oo kale waa kan waa iigu jira. change of character horta maanan isticmaali jirin oo kaas waan ka dhacay xoogaa angarat George iyo waxaas asagana loo qoraa laakiin labada midka isticmaashidba waa isla meeshii waa isku isla macnihii maaragtay waxa la oo qaadid iyo jiidid waa isla gurigeen soo maahayn waa isla meeshii waa isla suuq la jibiyay way suuq jahaysi bedeshay way meeshaan oo kale isaga laftirkeeda change of character iyo proof of structure iyo market structure shift intaba maaragtay waa dhaxan kartaa intaas waa maaragtay waa dhaxan kartaa kulligood. marka suuqa halkan kan oo structure buu sameeyay and then markale halkan waxaan maaragtay iska sii bedelay oo structure kala sameystay market structure shift kale waa ku qoran kartaa proof of structure waa ku qoran kartaa wax kasta oo aad jeceshahay waad ku qoran kartaa hadda doontana waad iska deyn kartaa oo aniga hadeer ma isticmaalo kuwaas waxaan hadda isticmaalaa hour haddii meeshu tahay hour baan ka dhigtaa 4 hour haday tahay 5 minute haday tahay 15 minute haday tahay mid baan ka dhigtaa maadaama 1 hour tahay 1 hour oo maaragtay isbedelay jihadiisa saas oo kale baan ugu qortaa. marka waa kaas laakiin ugu waxaan inay iska xarfa yihiin baro maadaama maaragtay hadhow laga yaabo inay dib ka anfacaan. I think inay intaas ahayd inta maaragtay aynu maanta maaragtay casharkeena ugu talagalnay casharkii koowaad qaybta intermediate-ka. casharkan aad buu u batay u dheeraaday muuqaalkiisu markaa waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iiday. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.